waan idin salaamay saaxiibayaal soo dhawaada mar kale markuu filimka bilaabanayo waxaan ugu barayaa nin la yiraahdo Curtis wuxuu arkayaa daruuro aad u cufan oo ka muuqda magaaladiisa waxay u egtahay in duufaan iyo roob xooggan uu soo socdo si lama filaan roobkii ayaa bilaabmay laakiin waxa la yaab leh ayaa dhacaya roobka ma ahan biyo balse wuxuu ahaa roob saliid ah markuu tan arkay Curtis wuxuu bilaabayaa si lama filaan indhihiisa ayaa furmaya wax walba uu arkay waxay ahaayeen riiwo isqubiya kadibna wuxuu fadhiistay miiska quraacda halkaas aan ku arkayno xaaskiisa tamaanta iyo gabadhooda la yiraahdo Hana Curtis laftiisu waa nin dhismo ka shaqeeya halka tamaanta ay tulada ka shaqeyso dukaamadaheeda waxayna dhaqaale ahaan ka caawisaa Curtis waxay tagaan iskuulkooda Hana 3 jeer isbuucii maxaa yeelay Hana ma hadasho si ay ula hadlaan wax ay bartaan luqadda dhigo waxay sidoo kale u wadeen daaweyn taasoo u baahnayd dhaqaale badan isla waqtigaas tamaanta waxay qorsheynaysaa fasax oo ay nafteeda u shaqeyso oo lacag u keedisay waxaana la tusay in Curtis uu gurigiisa ku keediyay alaabo badan aan faa'iido lahayn sababta wuxuu aaminsan in musiibo weyn ku dhici doonto magaalada sidaas darteed wuxuu rabaa inuu sameeyo hoy ama aqal wuxuu bilaabayaa inuu kala saaro dhammaan alaabta muhiimka ah ku muhiim ahayn markii si lama filaan mar kale cirka daruuro madow ayuu yeelanayaa tusinimo ayaa dhacay hilaa cirka ayaa si toos ah u dhacay dhulka taasoo keentay in ay Curtis uu bilaabo inuu qeyliyo kadibna wuxuu jibinayaa xirgiisa wuxuuna qaniinayaa Curtis markuu qaniino Curtis wuu toosiyaa wuxuuna ogaanayaa in ay tani tahay riyo kale laakiin waxa la yaab kale ayaa ah in riyadaasi ay meesha uu ay ka qaniinay wali ay xanuunayso gacantiisa markuu taas ka fikirayo wuxuu ku mashquulayaa kulinkiisa shaqo taasoo keentay in madaxiisa uu ka xanaaqo sababta roobkii ka da'ay magaalada hawshiisa way dib dhacday hadda madax wuxuu rabay in shaqaalaha oo dhimay ay si wadajir ah ula qabtaan Curtis si ay shaqadiisa waqtigaas looga dhameeyo kulanku wuu dhamaadaa dhammaan wax ay bilaawayaan shaqadooda markuu Curtis shaqeynayo wuxuu arkaa in shimbiruhu cirka ku duulayaan si caadi ahayn markuu taa maqal wuxuu weydiiyay saaxiibkiisa ma aragtaa shimbiro cirka ku jira markuu ku jawaabmay Curtis wuxuu fahmay in waxyaabaha la yaab kale ku dhacayaan isiga uu kariyihiin isiga oo kaliya ayaa arkaa kadib shaqo daal badan Curtis wuxuu yimaaday iskuulka Hana halkaas ay ku barinayeen luqadda dhagoolaha laakiin sabab la xiriirta shaqo badan Curtis ma awoodin in waqti la qaato qoyskiisa taasoo keentay inuu si tartiib ah u barto luqadda dhagoolaha hadda waxay ka baxayaan iskuulka oo guriga u soconayaan markaas roob ayaa bilaabmay roobka ma ahan biyo balse saliid oo ahaa sida aan riyada ku soo arkayna filimka bilawga roobkan wuxuu ka dhigayaa aragtida Curtis mid madow gaarigooda ayaa istaagay kadib markii ay wax ku dhaceen taasoo ka dhigan inay shil galeen Curtis sankiisa ayaa dhiig ka yimaada gabadhiisa way baqaysaa kor inta aysan wax qaban si lama filaan daaqada baabuurka ay qof soo jibinaya wuxuuna ka saarayaa gabadha Curtis wuuna qaataa Curtis wuxuu ku dadaalayaa inuu badbaadiyo laakiin gabadha waa la qaatay si lama filaan ayuu indhihiisa u farmiyaa markale wuxuu ogaanayaa in tani ay tahay riyo kale cabsi badan markan wuu ka walwalayaa riyooyinkaas wuxuuna sidoo kale u muuqdaa mid jiran taasoo keentay in Samantha ay ka walwalso laakiin Curtis wuxuu leeyahay ha ii walwal waxa laga yaabaa inaan qabo qandho caadi ah waxaan hadda u baahanahay inaan Hana geeyo iskuulka markuu sidaa dhaho Samantha way tagtaa markii Samantha ay baxday Curtis wuxuu u bilaabayaa shaqo markii hore wuxuu dhisay gidaar yar oo ku yaala eeyga agtiisa sababta wuxuu ku riyooday inuu eeyga dhaawac u geystay kadib markuu u bilaabay hagaajinta alaabtiisa aan faa'iido lahayn wuxuu arkayaa albaabka guriga godka hoose oo furnaa markii furay uu gudaha u galay wuxuu helay fikrad cusub oo ah inuu halkan ka dhiso hoyga si uu uga badbaado duufaanta laakiin si uu dhiso hoyga wuxuu u baahnaa lacag badan fiidkii markii ay Samantha guriga timid waxay u sheegtay Curtis in ay lacag badan u keedisay safar fasax ah Curtis wuxuu rabay inuu lacag weydiisto laakiin uu ka walaacay sababtoo ah Samantha si adag bay u shaqeysay lacagta maalintii xigtay mar kale ay duufaan ka dhacaysa magaalada Hana waxay ka daawanaysaa duufaanta daaqada iyadoo ku faraxsan markuu Curtis u dhawaado si uu dhunkado wuxuu arkaa in banaanka daaqada nin si weyn u eegayo Hana ninkaas ujeedadiisa ma fiicneen sidaas darteed Curtis wuxuu u qaadayaa gabadhiisa oo gadaal u durqaya ninkaas wuxuu bilaabayaa inuu garaaco albaabka guriga dhulgariir ayaa sidoo kale dhacaya dhammaan alaabtii guriga Curtis waxay bilaabay inay hawada sar u kacaan si lama filaan indhihiisa way furamayaan tani waxa ahayd riyo kale markan riyadiisa way cabsi badan xitaa sirtiisa uu ka kaadiyay wuxuu ahaa mid cabsi badan dareemaya waqtigaas Samantha wax ay timid qolka labadooda waxay ahayd inay maanta aadaan kaniisada ay tagaan Curtis wuxuu yiri aan ku xumay maanta kulma socon
adiga iska tag adigoo degan, anna waxaan daryeelayaa guriga iyo Hana. Samantha way ogolaatay wayna baxday. kadib markii ay baxday Curtis wuxuu u bedelayaa goosa sirrata wuxuuna Hana la tagayaa maktabadda. halkaas wuxuu ku baarayaa calaamado ku saabsan riyooyinkiisa iyo cudurkiisa, laakiin wax gaar oo faa'iido ah ma helin. markaas Hana wuxuu u qaadayaa dukaanka raashinka wuxuuna soo iibsanayaa cuntooyin badan oo la xirxiray. maalintii xigtay Curtis oo walwalsan xaaladiisa awgeed wuxuu u tagayaa dhakhtarku wuxuu u sheegayaa in uusan hurdo helin 4 habeen ee ugu dambeysay. dhakhtarku wuxuu yiri arrinta ma ahan wax weyn. markaas Curtis wuxuu u sheegayaa dhakhtarka dhammaan dhibaatooyinkiisa. sababta dhabta wax ay tahay in rooyin aad u yaab badan u arko. waxa xitaa ka yaab badan in wax walba ku dhaco riyada xitaa kadib markay dhamaanto uu wili dareemayo. tusaale ahaan riyadii uu habeenka qaniinayay eegii wili jirkiisa way ka muuqatay qaniinyadii. dhakhtarku wuxuu fahmayaa in Curtis uu la walaacayo dhibaatooyin dhinaca maskaxda ah. wuxuu yiri markaan waxaan ku siinayaa daawooyin kuwaasoo ka caawin doona hurdo fiican, laakiin sidoo kale tag oo la kulmo dhakhtarka cilmi nafsiga ah. dhinaca kale waxaan aragnaa in Samantha ay ku sugan tahay shirkadda caymis ah iyadoo ka faa'iideysanaysa caymiska caafimaad ee Curtis shaqadiisa uu ka helo. waxay rabtay in lagu sameeyo qalliin gabadheeda Hana. nasiib wanaag codsigeedii waa la aqbalay. markay guriga ku sii laabanayso Curtis wuxuu tagayaa si uu soo qaato daawooyinkiisa wuxuuna ogaaday in daawooyinka uu bilaash noqon doonaan. wuxuuna aad ugu faraxay markuu maqlay arrintaas. markuu guriga yimid Samantha iyadana way ku faraxsaneed. Samantha wax ay ku tiri hadda uma baahna inaan lacag badan kaydsano, qalliinka Hana wuu dhici doonaa. qoyska wuxuu si fudud u qorsheynayay safar qoys ah. Curtisna wuxuu ku faraxsanaa dhammaan arrimahaas. hadda wuxuu aaday musqusha wuxuuna si qarsoodi u qaatay daawooyinkiisa dhakhtarka soo siiyay. habeenkaas wuxuu helay hurdo wanaagsan wax riyo xun lama kulmin. taasi waxay keentay inuu dareemo firfircooni badan. Samantha way aragtay isbedelkaas. markaas ayuu Curtis shaqo tagay. wuxuu saaxiibkiisu kala hadlay mashruuca hoyga uu guriga ku dhisayo, balse si lama filaan ay u maqlo codka daruur duufaan ah. wuxuu kor u eegay cirka, la yaab cirka gabi ahaan buu cadcada. xitaa saaxiibkiisa codkaas ma maqlin. arrintaas waxay aad u dhibtay Curtis, caafimaadkiisana wuu xumaaday. wuxuu bilaabay matag, sidaas darteed shaqada ayuu ka fasax qaatay oo guriga ayuu u noqday. wuxuu la ila darnaa wareer cabsi lama filaan ah. wuxuu gurigiisa dhinac ugu dhigay wadada wuxuuna arkay in meel u dhow lagu iibinayo konteenaro. markii uu arkay isla markiiba wuxuu helay fikrad inuu hay fiican ugu dhisi karo konteenaradan, laakiin waqtigii uma fiicnin arrintaas. cabsadii iyo malawaalkii maskaxeed ka imaanay Curtis wuxuu go'aansaday inuu ogaado sababta. markaas ayuu aaday guriga hooyadiis, waayo sanado ka hor hooyadiis waxa ay la dhibtooneed cudur la mid ah. iyadan waxa ay qabtay wareer cabsi iyo malawaal maskaxeed. ugu dambeyntii wuxuu tagay guriga. Curtis iyo walaalkiis waxa soo kiriyay aabahood geligiisa. maalin maalmaha kamid waxa ay heleen qashinka hooyada. kadibna Curtis iyo aabihiis waxa ay hooyada ku dareen isbitaal gaar ah. Curtis wuxuu rabay in hooyadiis weydiiyo in dhibaatooyinka maskaxeed ay iyada darteed uga imaanayaan, in cudurku yahay mid high side ah, laakiin waqtigu u tagay hooyadiis xitaa waxba ma xasuusanayn, mana garanayn in Curtis uu yahay wiilkeeda ay iyada dhashay. si fudud Curtis waxba kama ogaan cudurkiisa. tilaabada xigtay waxa ay ahayd inuu la kulmo dhakhtar cilmi nafsi ah, laakiin xaaladiisa aad bay u xumeed. xitaa wuxuu u baahday inuu aado magaalada Columbus, balse ma wadan karin gaarigiisa. markaas ayuu wacay dhakhtarkii wuxuuna ka codsaday inuu siiyo xulasho kale. dhakhtarkii wuxuu u diray la taliyaha si wanaagsan ayuu u dhageystay, laakiin sababta ma ahayn dhakhtar cilmi nafsi ah. ma uusan ogaan karin cudurka Curtis, mana uusan siin karin wax daawo ama talo caafimaad ah. wuxuuna kula taliyay Curtis inuu dhakhtar cilmi nafsi ah la kulmo. maalinba maalinta ka dambeysay Curtis wuu sii baqayay, xaaladiisuna way sii xumaanaysay. wuxuu dareemayay inuu ku khasban yahay inuu dhiso hoy u gaar ah. si uu tan u sameeyo wuxuu u baahnaa lacag badan, sidaas darteed wuxuu damaanad geliyay guriga si uu u helo dayn. kadib markuu lacag helo wuxuu u baahday qalabyo agab ah si uu hoyga ugu dhiso banaanka guriga. qaybta ugu horeysa waxay ahayd mishiinka qodo dhulka, kaasoo yaalo koobta dhismaha uu ka shaqaynayay, laakiin wuxuu ahaa hanti shirkad laga leeyahay, waana ka mamnuuc inuu gurigiisa keeno. laakiin Curtis wuxuu la yimid saaxiibkiis, waxayna bilaabeen shaqada. markii Samantha aragtay waxa guriga ka socda, dagaal ayaa dhex maray iyada Curtis. intii isdagaaleen Samantha waxay ogaatay in Curtis uu qaatay deyn dhan $6,000 ah. arrintaas waxay sii kordhisay walwalkeeda, waayo hore uma lahayn dhaqaale wanaagsan, lacagtoodana aad bay u yaraanaysay. hadda sidee bay ku bixin doonaan deyntaas? dhibaatadaas darteed xaaladda Samantha way ka sii dartay. Curtis wuxuu iskaga tagay Samantha geligiis ayuu banaanka u baxay, waayo xaaladiis maskaxeed way ka sii dartay. wuxuu tagay musqusha wuxuuna qaatay daawooyinkiisa dhakhtarka soo siiyay. markan wuxuu qaatay qadar ka badan intii caadiga ahayd, laakiin maanta daawooyinkaas waxba kama tarin. mar kale ayuu ku riyooday riyo kale cabsi badan, wuxuuna bilaabay inuu qeyliyo isigoo riyada dhex jooga. Samantha waxay hurdada ka toostay markay aragtay sida u qaxaayo. markii ay ruuxday Curtis sankiisa dhiig ayaa ka yimaaday. markii arrintaas aragtay aad bay u baqday, waxayna si degdeg u wacday ambulance. laakiin
Curtis muusan ogola in kooxda gurmadka ay baaraan wuxuuna dareemay in wax kasta oo dhacay yihiin wax caadi ah markii ay tageen kadib Curtis wuxuu dareemay in Samantha ay si weyn ugu walwalsan tahay isaga dartiis sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu waxba ka qarin Samantha wuxuuna u sheegay wax kasta xaaladiisa maskaxeed riyinkiisa wareerada cabsida ee ku dhacay wax kasta oo la kulmay markii maqashay xaaladiisa Samantha way walaacday waxay u sheegtay hawlwalin wax walba way hagaagayaan waxaan aadayna dhakhtar cilmi nafsi ah maalintii xigtay Curtis wuxuu aaday agaasimihiisa shaqada wuxuuna saaxiibkiis u sheegay in laga bedelo kooxda uu la shaqeeyo waayo habeenkii ay ku arkay riidiisa in noloshiisa khatar kaga imaanayso saaxiibkaas sidaas darteed wuxuu iska fogeeyay saaxiibkiis markuu shaqadiisa ka soo noqday wuxuu bilaabay saddex waji xirkaas maaska qoyskiisa wuxuu guriga yimid wuxuuna qaaday dhulka si uu konteeradii hoos uga dhigo taasi micnaheedu waa inuu dhameystiray hoygiisa intaas shaqada uu ku jiray walaalkiisa ayaa u yimid si uu waaniyo wuxuu ku yiri waxa sameynayso waa wax qaldan lama rabo in guri difaaca sida oo kale loo dhiso laakiin Curtis uu iska indhitiray habeenkii mar kale ayuu riyooday wuxuuna arkay in Samantha iyadoo qodan ay taagan tahay jigada iyadoo eegaysa muddo ag taalay si ay ugu muuqato inay doonayso Curtis inuu ku weerarto mididaas laakiin Curtis ayaa istaagay ka hor intaysan wax sameyn wuxuuna si laan ugu toosay hurdada riyadan waxay cabsi dheeraad ah ku reebtay subaxii markay Samantha oo timisay cunto u siiso Curtis wuu ku fogeeyay isiga Samantha waxay tiri agaasimahaaga wuxuu kugu sugiyaa banaanka agaasimihii wuu yimid isagoo wata war xun qalabkii uu Curtis si sharci darro ugu qaaday shirkadda si uu hoygiisa ugu dhisiyo dabeecadiisa guud darteed shaqada waa laga ciriyay hadda wuxuu haystaa caymis caafimaad oo soconaya 2 toddobaad oo kaliya waana waqti kaliya ku daaweyn karo gabadhiisa Hana Curtis wuxuu isku dayay inuu agaasimaha u sharxo dhammaan wax ku dhacay dhammaan waxyaabo uu sameeyay inuu u baahi qabay laakiin agaasimihii wuu iska baxay isagoona dhageysanin warxumadaas waxay Samantha ku rideen niyad iyo wareer maadaama hor uu la tacaalay dhibaato dhaqaale dhinaca kale Curtis wuxuu qaaday deyn hadda shaqadiisa waa laga eriyay waxaana arrimahaas oo dhan keenay in Samantha ay xanaaqado oo ay rabaxdo Curtis oo gabadheeda ka qaadato laakiin xanaaqas wuxuu ahaa mid ku meel gaar ah waxay garanaysay in Curtis uu xanuunsan yahay sidaas darteed fiidkii waxay ugu timid dhammaan lacagtii ay keysatay waxayna ku tir lacagtan ku bixiso deynta safarkii xeebta waan kansalay Hana daaweynteena waxaan u maleynayaa inaan xoog saari doono shaqo cusub si aan lacag u helo oo aan u daaweyno gabadheena Hana marka lagu daro adigan dhigeysa Curtis waxaad u baahan tahay dhakhtar cilmi nafsi ah Curtis wuu qaatay taladii Samantha kadibna isaga iyo Samantha waxay u baxeen cashadii dugsiga ee Hana cashadaasi dugsiga waxa ay saaxiibkii Curtis kaasoo ka caawiyay dhismaha hoyga qarsoon markuu Curtis arkay ayuu aad u naxay waayo shaqadiisii isaga waa laga eriyay sabab la xiriirta Curtis wuxuuna si xun ugu dhaqmay Curtis dadka hortooda wuxuuna dadka u sheegay in Curtis uu ku amray inuu qabto shaqo sharci darro ah isagoo ma ogeen xaaladda maskaxeed ee Curtis taasi darteed ayuu sidaas uga carooday waayo markuu saaxiibkii Curtis wuxuu mooday in Curtis uu qiyaamo oo kooxda ka saaray markuu arrimahaas maqalay Curtis wuu carooday wuu istaagay wuxuuna miiskii dhulka ku tuuray wuxuu bilaabay qaylo wuxuuna yiri dhamaantiin waxaad ii moodaa mid waalan laakiin miisiyaad ii midaysan waxaan sameeynayaa wax saxan waxa soo socota duufaan aad u halis badan idinkuna diyaar uma tihiin aniga kaliya isku diyaarinaya wuxuuna sidaas ku yiri isagoo ka sii xanaaqaya Samantha ayaa si dib badan guriga u qaaday maalintii xigtay waxay u muuqatay in hadalkiisu uu rumoobay waayo cirku waxa ku duulay shimbir isla habkii uu ku arkay riyooyinkiisa markuu taas arkay waxay aragtay Hana oo taagan bartamaha wadada wuxuu ordisay u badbaadiyo waxayna markii shimbiri ku hareersameen si adag ayuu u guuleystay inuu badbaadiyo markaas lama filaam sireen baa bilaabay inuu dhabaaqo markuu sireenka maqlo wuu toosay taasoo la macnaa inay tani tahay riyo kale laakiin hal shay baa dhab ahaa taasoo ay sireenka dhagto bina ka yeerayo markii dibadda fiireen waxay arkeen duufaano badan soo socda si ay ugu badbaadaan duufaantaas Curtis wuxuu geeyay qoyskiisa hoygii qarsoonaa wuxuuna kaasmaaska u saaray saddexdooda waxayna habeenkii saaxdeen halkaas subaxii markay tooseen waxa ay dareemeen inay duufaanta ay dhamaatay laakiin Curtis wuu ka baqay inuu albaabka banaanka uu furo wuxuuna furay si xaaskiis wuxuuna ku yiri aad fur albaabka laakiin markaan Samantha ma dhageysan adiga fur albaabka oo ka gudub wax aad ka baqayso markuu cabsi ku jiri Curtis wuxuu furay hoyga cirku wuu furan yahay diriskuna way bad qabaan dad yar baa nadiifanaya burburkii duufaanta keentay maalmo kadib Samantha waxay Curtis u geysay dhakhtar cilmi nafsi ah markuu eegay xaaladiisa maskaxeed dhakhtarku wuxuu kula taliyay inuu ku fogaado qoyskiisa muddo gaaban isigoo la joogay xarunta daaweynta markuu taas maqlay aad buu u baqay waayo weligiis ma rabin inuu ka fogaado qoyskiisa sida hooyadiis ay isaga u fogaado wuuna isdhibi waana maalmo kooban oo kaliya Samantha waxay u sheegtay aniga ka tagi mayn waana ku garab taaganahay maalmaha yar laakiin Curtis arintaas diyaar uma ahayn wuxuuna u sheegay Samantha in inta ka hor uu doonayo safarkii xeebta inay la gasho safarkii Samantha mar walba ay qorsheenaysay way safreen Curtis wuxuu la qaadanayay waqti xasuus leh qoyskiisa markaas ay Hana farta ku fiiqday xeebta waxayna ku tiri hooyo aaba duufaan baa ka soo socota badda markuu arkay uu xawaana sir duufaantii mar walba ku arkay riyooyinkiisa markuu dib u fiiriyay xaaskiisa ayaa madax u looxday si ay u muujiso in wax walba uu arkayo ay dhab ahaayeen dhamaadka sheekada sirtii way cadaatay
in Curtis uu yahay qof waalan laakiin dhab ahaantii arki jiray mustaqbalka burburka imaanaya isagana wuxuu u diyaar garoobay sidii qoyskiisa u badbaadin lahaa filimku wuxuu ku dhamaanayaa iyadoo la muujinayo dhammaan arrimahaas